أرد سكالسة قشة سكالسة سيدي قلبي تاي بارم سكالسة قشة وعليكم السلام عبد الرشيد علي قلمدك بوها بلينا ها لسكما قراعي هذا المالا وكا إبوي كربوسي من تفينو هوني ها قمعي رصاصة ليسكو قمعي رصاصة وصرت قودكو ليسو ما قراعي ها شاذا المالا بوي من تكينو بوي قربسي من تكينو يا بوني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هبلي أنو لنا قلمدوك محمد إبراهيم جعيلة وأدباكو السلام يا ها ها قلمدوك وغبرينا نبتكو واناني بوغبرينا قلمدوك يقص عليستا قلمدوك نبض كوارتاني بوغا بريينا وكا قلمدوك يا زازوية محمد عبد الله قوليسو إيو قمعيو رصاصون لما صارت قودكو لما قراعي لما صارت قودكو لسكوما قراعي قرشنا لما لا وكا مريم نصلت إلى عاشقة إبوي ما يتكينو قي إبوي كربسي من تكينو قي ها بوني سمين قرشة هبونا قرتو السميان وكا وعيارة يا والله دينك يقدع يا ويابيسا وكا اسكو كوبي يا قمعي يا رصاصون ليسوا مقرنسين ليسوا مقراعي ها بشهد الله مالا سيدا قلبدك بوي قربسي ما يدكينو ها بوي قربسي ما يدكينو
garashada habboone guurtid sameeye waka godob iyo xumaan ma leh waka inay nabadu gaadho galmudug waka nabad kuwa dhaane booga baryayna booga baryayna galmudug waka cabdixaliim xaaji iyada ciyaarta maaha wallaahi bilaa waa ku faraxsanaya bilaah galmudug waka kuwa dhaane booga baryayna mudug sama kuwartaane booga baryayna galmudug kuwa dhaane booga baryayna nabad kuwa dhaane booga baryayna kuwa sama kuwartaane booga baryayna mudug galmudug sama kuwa dhaane booga baryayna nabad kuwartaane booga baryayna galmudug galmudug sama kuwa dhaane booga baryayna sama kuwartaane booga baryayna galmudug sama kuwa dhaane booga baryayna sama kuwa dhaane booga baryayna wakaas wazaas heesta waxa la yiraahdo waa noognahay soo daa madaxweynaha markii la doortaan ka sii daranahay caaway ka daran tahay buu yiri ninkii warmaya sanad guura ma rabnaade hambal yaan rabnaa aawo sal nabadgu guul baanu leenahay galmudug هالي سلمان أدبك وسلام يا ولا القالية فردوسة إذا عاشقة أدبك وسلام يا ما شاء الله قول أحمد عبدي قرقور ياس مركي مدحوينها الله دور تنسف عن باود بالدقينا قلمودك سمك وارتان إيبو وقبرين بقل أحمد كاري غور بس سفح عنو دبالدقينا مركي لا دورتو ووري اللي بحدي با سوق الشيء هذه عاد باكو سلامة يا اللي باعو فرحية ظاهرتي إذا عاشقة قولي يا قبل لي بقلمد ورا الله صعبه نو قلالو صعب مرة بنو قول قلمدوك فردوسة إذا عاشقة مايونج سيستر I love you halkaas waxaa laga jeedaa sucaadada ida caashaqa qalantada ida caashaqa my sister kaali aad baan idin wada salaamaya dadkayga aad iyo aad ii jecel anna aan jeclahay gabdhahaas waa first lady iyo wiilashayda maxamed cabdalla iyo I love you wadnaha idinka jeclahay I love you dear sister وذا جرها
وكا نعب يا سكاية إن نعب لا سجدك وجنبه قوشوا من نبا ترى نوفيرنا يا با ترى نوفيرنا يا قلمودو قوش قلمودو يا الله قلمودو يكون عنتها يكون عنتها وكا يكون عنتها يكون عنتها قلمودو يكون عنتها يكون عنتها قلمودو هابو معان هاني عبد بستول هابو I love you قلمودو قبلها ابو كليدر موالنتا انغا هيسنا انغا ku wadana fardawso galmudug anagu hadaan dumarka Soomaaliyeedna waxaan reer galmudug dhamaanteen dumarka Soomaaliyeed galmudug bay garab taagan yihiin alaaf galmudug hormuudka waxa weeye Soomaaliya ku caantahay waka ku caantahay ku caantahay waka galmudug ku caantahay ku caantahay هاو معان تلك هدي إلا قضية ما أنت بريبه هلايان تلك كلا هلاي دب مراها لكن وحوي هذا تلك كلا فرحسن صومالي كلا فرحسن أنا لفرحنا دب مراها بري أبرير معان با تلك وحلايا إن شاء الله تعالى إلا وضع قنعين كرا ما شرتو إلهي بعدك قنعين كرا لكن هذنا تدي وراها يا فرحسن ما أنت برينا هذا فرح الدور إن شاء الله قبلها قيمة هذا أي maxaa la dhahaa ulayso hore la soconaya sister aad iyo aad sucaadadeeda caashaqa absolutely anagu waa faraxsanahay dumarka Soomaaliyeed hadaan ay dumar badan baa xildhibaanna laga dhigay dumarka maxaan ku dhahay gudoomiyaha labaad waa dumar anigu dhuusa mareeb baa u socdaa cadaadaan u socdaa caawda aqbaan u socdaa gallisoor baan u socdaa ma fahmayso caana ka soo cabaya gudoomiyaha iyo anaga wafti ku tagayna gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee galmudug ladies first سو عفانتي ما grown up Soomaaliya anaga dhisayna meel walbana saasan hormuud uga noqonayna qod cod iyo qofna u soo diyaar garoobo gabdhow galmudug maxay ku caantaa kabaan maxaa tiri galmudug أنبي عدبا كو سلامة يا قلمودك وكا إيكو عانتاي والله هبري الوارم بريبا فرحي سنة ذكرة إن شاء الله يا next time قلمودك وكا يكو عانتاي سندك وسندك قبلها بدبالة قرنك absolutely أنا ورطة هذا دمرك الصوماليات أنا إذا جيست دمرك الصوماليات وأنا فمينيست أنا هاي إن شاء الله قبل في عنها إلهي هكذا قبلها للدورتي أو الدنيين أو وحكي بدله قبلها سنة وحنا هالكان باق وقدر يهنا عيبيننا
wax badan baa ragga eedayna han ceebaynina gabdhow soo waxa faantay ma aha waa inaad galmudug muuqaal ka duwan maamulada kala ay yeelataa sanadka maanta iyo maadaama gabdhuhu ay hormuudka ugu sareeyeen ku jiraan baarlamaankiina aad ka soo buuxsatay wax badan baa la yiri gabdhaha waa la xaqiray soo waxa faanteen ma aha anna wadaan naloo dhiibila waxbaan wacayn lahayd horaan u socon lahayd baan wax badan niri gabdho horay u socda oo han ceebaynina wallaahi filaayo talay gabdhaha galmudug loo doortayo ama madax iyo mijabow inta xildhibaanada loo doortay kuwa wasiirada loo dooran doono war dhexda dhuuqsada oo qaranka Soomaaliyeed garab istaaga oo reer galmudug waa inaad wax badan ka bedeshaan oo takadaha in la dhiso aad ka shaqaysaan oo jidadka la dhiso ka dhaqaysaan oo dadka abaabushaan hooyooyinka booskoodi waa inaad ka soo baxdaan baa annaguna waa idin garab taagan haddaan haweenka dumarka Soomaaliyeedna meelaan joognaba jaaliyadaha dumarka Soomaaliyeed gabdhaha reer galmudug boqolkiiba 20 xildhibaano iyo maxaan ku dhahay iyo hoggaanka baarlamaankaba waa gabdhow hana ceebaynina raggi wax badan baan eedaynay maanta hana ceebaynina ها تولا يا باديما وين يوقعان كدورو الله عريد تشيرو قلمودك اوكا اي كوعان صاي ها كوعان صاي تايو كوعان صاي قلمودك وكا بيكو عانتا تايو بيكو عانتا قلمودك على كيدو ان دمرك رج وحبا نوما قبطان هابو صحا دمرك وهن عيبيننا قبلو ميل والبا كلا هادلا قبلها قلمودو كسو بوخسبay maanta 30 sanaan laan gabdhaha waa la xaqiraaye xagee u tagaysa walaalahay ragga xagee u tagaysa walaashay sheer maya anigu waxba idin ma haysto laakiin 30 sanaan idin eedeynay waana la siiyay xaqayay galmudug bay ku bilaabatay anu idin ma fogeynaya laakiin xaqaan lahayn baan raadinayna hadaan dumarka Soomaaliyeed nahay laakiin xaqayaga markii nala siiyo waxaan rabaa inaan bariiqan oo gabdhaha reer galmudug de kartida lagu yaqaanay waa gabdhaha waxa weeye reer galmudug ama mudug iyo galgaduud waa gabdhaha ugu karti badan gabdhaha marka inay ceebeeyaan mar rabee waa si guubaabinaya waxaan leeyahay war ka soo dhalaala meesho raggi waxay qaban waayeen waa inay qabataan waa anaga eedan jirno dhii jiray anagana xaqayagii naloo did ragguna waxba nooma qabto Soomaa inaad armacaan intaas baan iri ceebna kuma lihiday hadii aan de dumarka aan garab istaago sababtoo ana dumar ah aad iyo aad baan ku salaamayaa ayaan xasan qaasimtayda caashaqa aad iyo aad baan ku salaamayaa libaaxad gabadhaas aad iyo aad baan u jeclahay meel baan iskaga egnahay dhiigayga waa isla shaqeeya aad iyo aad sababtoo ah waa gabar runta sheegta oo runta ka gaban ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baqada aan qabiilna caabudin shakhsina caabudin wajina caabudin aad iyo aad baan ku salaamayaa ayaan xasan qaasim noolow abaaye macaan soo dhawow galmudug baan u hanbaliyeenayna maanta galmudug salaan gobad gabdhaheena ha gabdhaha waa u hanbaliyeenayna gabdhaha dhan waa inay u hanbaliyayaan nayaa meesha naga giijiya aan leena naga giijiya يوكل العراف كدورو
علو على كيلو waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba aan u hambaliyeeyo waxay aan tahay maya munoy cabdiyey galmudug waxa aad ku sheegaysid ku caan ma aha galmudug annagaa ka nimid walaalay mooryaana ma nihin ma fahmaysaa galmudug waa mudug iyo galgaduud qabyaalada iska daaya so waxa faantay maaha idab darada iska daaya washiinsinimada iska daaya ilaahay ka cabsada oo waxaad samaysaan galmudug dad badan oo qabiilo badan baa degan nooc walbaba ah shakhsi wuxuu sameeyayna qabiilna ma lahan magaalana ma lahan gobolna ma lahan ma fahmaysaa marka waxa weeye idab darada ha la joojiyo maxaan ku dhahaye masayrkana ha la joojiyo masayr baa idin wada masayra ku haya waa muuqataa galmudug hadday tiri anagu imaaraad ma rabno yaa imaaraad ma rabno hadday tiri anaga nalababaya anagu haddaa horta reer mudug nahay iyo reer galgaduud mudug baa la isku dhihi jiray markay dadku halka aadaan halkaasaan aadnaa maamul xaafadeedyadii waxay aadeen bari anaguna waxaan aadnay koonfur anagu qarannimaan qaadana so waxa faantay maahan anagu cidna ma dabagalna annagaa nala dabagalaa annaga imaaraad naloo hogaamin mahayo so waxa faantay maaha reer gaalkacyoodna waad arkayseen maanta waxay dhaheen annaga garowa nalagama xukumahayo iyo imaaraad iyo debay muqdishaa nalaga xukumaya sheekadu waa dhammaata adeer ma la isku qaraaraya qaraar miyaa meesha ka socda qaraar miyaa meesha ka socda masayr miyaa idin haya ma fahmaysaa mooryaannimo waxay saldhigata oo aabaheed iyo hooyadeed tahay tuuganimada kuwa tuuganimada iyo maxaan ku dhaha qaraabashada iskugu baxayo boosaas ugu tagayo kadib boosaas gatayo imaaraadka laga xukumo waxa weeye qaraar baa idnaayo waxa leediina laydinka xukumo garowo intay xukuntay bay xukumi weyday oo xaar kala daashay oo gabdhaheedii kufsata oo ceesaamihii bay kufsata riyihii bay kufsata masayr baa idahaya dhuusa mareeb adeer garowo lagama xukumayo iyo gaalkacyo haddii lagu yiri ma dadkaad caynaysaa waa khalad weeye hala kala xishooda adeer garowe waxa laga xukumaa imaaraad baa laga xukumaa runtaa miyaa la rabaa masabeen nabar iyo naxdin iyo najaaso iyo xaaraan baa idinka ah iyo imaaraad iyo kufsi iyo riyo kufsasho iyo 13 jir baa la kufsanaya garowe adeer ha noogu keeninina meesha galmudug la yiraahdo 13 jir la kufsanayo iyo riyo la kufsanayo dooni mayno imaaraad baa waxaas keenay 2 jir la kufsanayo riyo la kufsanayo ma doonayno adeer ma doonayno nabar iyo naxdin iyo tuuga iyo xaaraan iyo baqti iyo najaaso laadiga aad iyo aad baan ku salaamaya xamdi xurmadayda caashiqa aad iyo aad baan ku salaamaya ma fahmaysaa adeer macaan waxba ku sheegaa maamul goboleed waa la sameynaya laakiin maxaa loo sameynaya maamul goboleedku waa inuu garbo u noqdaa qaranka Soomaaliyeed hadaa rabtiin inaad qaran Soomaaliyeed dhisataan maamul goboleed qabiil lama doonayo iyo maamul goboleed jaadsuus ah oo imaaraad hoostaga iyo carab oo riyaha kufsanaya ee shayaadiin ah looma baahna adeer macaan maamul goboleed hadaad maqashid waa taayiradii uu qaranku ku soconayay weeye waa maamul hoosaadkii gaarsiinayay maxaan ku dhahay wixii aysan dawladda dhexe gaarsiin karin magaalooyinka aad iyo aad baan ku salaamaya cirweyn iyo cabaad weyn aad iyo aad baan ku salaamaya carabow cabdille cali geestir aad iyo aad baan ku salaamaya adeer macaanta garowe inteeni ayna xukuntay bayna xukumi weyday oo rabna inaan ka soo tagno galmudug soo aadno takada hobiyaan rabnaa in la dhiso adeer macaan in la isdhexgal la sameeyaan rabnaa soo waxa faantay ma goldogob iyo bursaalax iyo bacaad weyn baa rabta inay ku soo biirto galmudug soo waxa faantay ma garowe laga soo kala carar ama qaylsha ama iska daaya galmudug baan u soo soconaa ama mooryanda ama baraqda ama masayra idan haya waad muuqataan adeer waad muuqataan sayr baa idan haya soo waxa faantay ma aha waxaan u baahanahay maamul goboleed hoostaga muqdisho oo filla Soomaaliya laga xukumo wixii loogu dhiibo oo Soomaaliya loogu dhiibo dadka shacabkaana si cadaalad u gaarsiisa tan labaad anigu waxaan kale ku sii taageerayaa inshallah love you forever caday qurxay nolow in adeer macaan aad iyo aad baan ku salaamay aad baan ku jeclaa wallahi billahi inaan been ku sheegeen
sagaashan iyo saddex qof baa daawanaysa fiidiyowgaani ayaan xasan qaasin been kuuma sheegaya waxaad moodaa hooyada inay ku dhashay fikirkaaga iyo fikirkayga waa isku mid weeye waxaad moodaa markaan hadlaaya anigu inaan hadlaaya markaad hadlaysid aad baan kuu jeclaa ilaahay ha ku daayo I love you marka waxaan u baahanahay dadkiina masayr ku haaya ee muuqda waxaa idiin sheegaya adeer macaan waxba idiin sheegaa meeshaan garowe la yiraahdo iyo imaaraad annagii baa ka soo cararayna annagu waxaan rabnaa in hobyo la dhiso goldogob waxaan rabnaa inay ka soo adeegato meeshaan la yiraahdo hobyo boosaase ma gaarno soo waxa garatay ma aha haddana 700,000 oo lowr oo dhagaxaaba lagu rogay imaaraad baa 700,000 oo lowr oo dhagaxa ku rogtay soo waxa faantay ma aha waxaan u baahanahay qabiiladan tirada badan ee mudug iyo galgaduudaga inay isdhex galaan sidii dagaalku u dhamaado oo shidaalka mudug ku jirana la soo saaro badda dhexdeeda ku jira soo waxa faantay ma aha maxaan ku dhahay takada hobyana naloo dhiso shirkadna naloogu dhiibo oo meeshaas aanu ka adeegano oo barwaaqo ay wada noqoto jidka ka soo baxa goldogob uu yimaado dhuusamareeb kan dhuusamareeb ka baxana uu yimaado ceelbuur kan ceelbuur ka baxana xaradheere uu yimaado kan xaradheere uu ka baxana ceeldheer uu tago kan ceeldheer ka baxana uu tago buq aqbale baan rabnaa soo waxa faantay ma aha waxaan rabnaa kan balanbal ka baxa inuu tago meeshaan la yiraahdo buulo berde waxaan rabnaa inay takada boosaasa meeshaan la yiraahdo hobyo buubin noqoto soo waxa faantay ma imaaraad ma rabna annagu in laga xukumo muqdisho in laga xukumaan rabnaa oo ay leelkasa iyo mareexaan iyo mursada iyo abgaal iyo shiqaal iyo nimanka la duduble iyo saruur isdhex galaan oo isguursadaan marka dambana waxaan samaynaynaa wiil ceelbuur ku dhashay baa goldogob gudoomiye looga dhigaya maamulka golmudug goldogob kan ku dhashayna ceelbuur baa looga dhigaya gudoomiye kan ceelbuur ku dhashayna dhuusamareeb baa looga dhigaya kan dhuusamareeb ku dhashayna gaalkacyo koonfurteeda looga dhigaya inkastoo raba gaalkacyo in la isku daro gaalkacyo oo dhan galmudug ku soo darmato soo waxa faantay maahan bari iyo nugaalna la isku daray maamul goboleed noqoto sooliyo sanaag iyo maxaan ku dhaha tog dheer haafkeedna la isku daro ay maamul goboleed noqoto maamul goboleed imaaradeesan laba rabee waxa la rabaa in maamul goboleed muqdishaysan oo filla Soomaaliya hoostaga la rabaa ماذا يقول خصبي عبد النور وقروا والله يجمع حكومتي قروا أيضا بالله حكومة لين الحكومة ما هي حكومة يسقروا ريه دي بقى بالله وصية المية دي بقى لكفسنا يا اللي بتشركة هنا ده نريسي لكفسنا يا إما على الله حكومة محوي حكومة كراينك نلا ليه محوي يا لان كراينا ده قروا ولا ليه إما راد بالله ليه أنا وني ما كاس عن إياه وين الرجال مدوق برا وين وعلى غير صلاة الرياض اللي كفسني وإمارة اللي جا حكومة مقدسة اللي جا حكومة يا الصومالية يسن وعلن كبلوجا يسن وقبيلة البدر ولا يسكو كرايا طارات بميل يسكو عروسنا يا ولا الجموع يا الرياح اللي كفسنا يسن حجرة اللي كفسنا هذا الله ما بحنا وحلو بها يا مرصدة مريحان للكسة شقال دودبل أنا هبر قدر سكنا هبر قدر مريحان للكسة إلهي كومة الرادة عمر محمود waxa la rabaa wada qadaynayo oo takada hobiyo ka wada xamaalanayo oo shidaalka la soo wada baxay halkaas ka wada shaqeynayo oo laan dheeraynayo wala saqa wada tumaya loo baahaya qabiilo meel isku haraystay oo is wada kufsanayo riyaha kufsanayo imaaraad laga xukumo adeer macaan ayaga bal xukumo maxay anagana xukumayaan ma doonayna de ma nagu qasbaysaan نوما قصبيسان هذا أنا وقل مذوق وعن ربنا إني للسنتان ربنا يلا لانديريو مدة كلا قل مذوق وعن ليه ولانديريال لو بنان دقي لانديرات دان مقشو قبلينا لوريجي أنا وهذا قل مذوق بان ربنا مركي هذا قل دقو عن كسر درا عليالا إسخبوس بعادوين قال كعيق وقوي هذه عرضها صار مركي كسر درا إيه حين دلان كنقطة وسير كنقطان ربنا صوت ماشي كليو قبلها وحلو قل يا وارد قل مذوق با هذا ماشي بوق للي هل قبر نحفر إذا كور تضاعتن يسوي محل مدينة توجد إمارات كلا حكومة حراميين تاي رياه كفصنا وعوي هل جبرة نحفر إذا هل جبرة ما وعاسا قنت أو رياه كفصنا أو لما تشرب كفصنا هذا معن والله وايد كنت فيادات أفكر أرايا يقول شوكي ويدا ما أنترا وعوي إذا رياه كفصتانو إمارات كورياه كفصنا واحد سكوت تكتم بوساسو أدي أدبك وسلام يا لكلا يرادو
أحمد محمودو أدير معان تاني دي كده بالدقنو أنا وهدان رير قلمودو هاي دبالدق بانو يالي هذا لما باهنيني ها تايو كوعانتا قلمودو قلمودو كوعانتا ها كوعانتا 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 قلمودو قلمودو هلو أروانو هايدي وذا نقل يانا الرأي معرات كالا يقصر نوصا عنيقا كعرضا ميش نامور قرابش عذير قلمودو 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 هبيو والله نيسا يا عذير إمارات أما هاويو أما دقاحيان لو رأى كروبا محان كنا هاي تميشا اللي البوصاصو والله نيسا يا هبيو اسكا اوي نظيف عدي نظيف يوسف أبا واكو سلامة يا كوعانتاي كوعانتاي قلبك قلبك ها وكا كوعانتاي كوعانتاي horta ma ogtiin Soomaaliya galmudug waa meesha ugu laandheeraysan Soomaalida fiiri waxa degan shiqaal waxa degan gabooye waxa degan daarood waxa degan hawiye nooc kasta daarood hal daarood ama waa leelkase waa majeerteen waa maxaa ku dhahaay to habar gidir waa abgaal waa maxaan ku dhahay ilaahay kuma darnaada imise qabiil baa degan waa meesha ugu laandheeraysan maamul goboleedka ugu laandheeraysan weeye maamul gobol walibana waa nimankii ugu xaniya cadcadaayo dhii jiray xaniyahan banaanka dhigana soo waxa garatay ma aha adeer macaan hadaanu anagu israacno maxaad intiina kala sheegaysaan caws baad noqonaysaan caws isku dhinac baana la isugu kinduwaya wallaahina mar dambe imaaraad ka soo qaraabanay arka soo qaraarta mar dambe imaaraad dhinac baa la isugu kinduwaya tuugayahay qaa'imiinta riyo dambana ma kufsanaysiin takada hobiyana waa la dhisaya ana idin sheegaya waa la dhisaya ama ooya ama imaarad lawriyo dhagaxyaha ku rogta boosaaso ama caruurta ha kufsadaan iska day wallahi oo bilaa waa la dhisaya insha Allah taala soo waxa garatay ma aha waxa weeyeen wax allaala iyo wax Umar Maxamuud leelkase reer biciidyahan reer Maxamuud walaaluhu waa iswataan iyo beesha gabeeyo degan qof waqooyiga gaal maxaan ku dhahay mudug waa iswataan galmudug bayna soo raacayaan waa la dhisaya ana ku sheegaye soo waxa garatay ma aha waa la dhisaya maxaan ku dhahay takada hobiyana hadii la dhisana imaaraad waa u dhamaat sababtoo imaaraad wuxuu dhowrka lowro dhagaxa ugu rogay meeshaan la yiraahdo boosaaso Soomaaliya ayaysa takada maxaan ku dhahay manfac leh oo istiraatiiji dhisan hobiyana waa istiraatiiji waa la dhisaya walibana shidaalka ugu horeeya daboolka waxa laga qaadaya mudugkan ku jira oo ku jira maxaan ku dhahay hobiyo agteeda ha sheekay ku nacay cusbada yadana warshadaban u keensanaynaa hadaanu nay reer galmudug cusbada moogta horta inay galmudug ka baxdo cusbada ugu badan oo laga cuno geeska Afrika oo dhan galmudug bay ka baxdaa warshadaan keensanaynaa al-shabaabna waa ka xaaqaynaa meesha beenha sheegin ma jeerteen ma degan waa degaya maxaa dhacay ma jeerteen wuxuu nala degaya gaalkac iyo Umar Maxamuud baa degan maxaa dhacay yaa ku yiri ma degana ma jeerteen kalaan dheerihiisa degan walibana annaga nawaalaysa Umar Maxamuud xagee degay oo reer Maxamuud baa degan reer biciidyahan baa degan meel ismaga degan maxaa dhacay bacaad weyn bay degan yihiin oo burtile waa nugaale bacaad weyn bay degan yihiin oo bursaalax bay degan yihiin oo maxaan ku dhahaay to garacad bay degan yihiin oo ilaahay kuma darnaade waxay degan yihiin guldugab xataa waa degan yihiin oo gaalkacay degan yihiin maxay u deganaan waayeen mudug ma taqaana iyo galgaduud waa galmudug weeye adeer meesha qabiil maamul ma noqdo dawladna ma noqdo soo waxa faantay labadaas gobol galmudug baa la isku dhahaa waa la isku daraya qasab baa la isku daraya adoo indhahaagu soo jeeda la isku daraya ama boosaaso dhagax ku rog ama iska daa ama caruurta kufso ama riyaha kufso adinka idin taala war ii daara heest warkiina ma rabe
waaba iga dhamaatay heestu yaa tollaay isu waa dabaaldegayna gudoomiyahaygina waa la doortaa daanu nahay reer galmudug waa la doortaa gudoomiyahayga yaa gabarna gudoomiye ku xigeen bay noo noqoto maxaa naga qaadi kartaan yaa waxaa naga qaadi kartiin ba iska yar yaa gabar qurux badan walibana aad iyo aad u qurux badan baa gudoomiye ku xigeen noo yaa حمد حرمه قلمدو ميي راعدي ها حمد حرمه ولقيت بي راعسنيدي maxaa kugu dhacay yaa weligeed bay raacsanaydina adeer galmudug hadaa maqasho waa mudug iyo galgaduud jamhad baa isbaara dhigatay ma ahane fiiri horta maamul goboleed maxaa loo dhisaa maamul goboleed qabiil ma aha micnaheedu jamhadii SSDF iyo USC ba isbaara meel kala dhigtay maamul goboleed waxa loogu talagalay dadka hoose oo isa dawladda dhexe wax gaarsiin karin oo tuulooyinka iyo baadiyaha ku nool inay maxaan ku dhahay wax gaarsiisa loogu talagalay dawladda dhexana ay baalihi ay ku duuli lahayd oo xoogii ay ku duuli lahayd taayiradii u noqoto laakiin wixii waxay ka dhigeen maxaan ku dhahay waxay ka dhigeen xaafado qabiilo jamhado haystaan oo imaaraad iyo tigreeg u shaqeeyay ka dhigteen xamdi saciid aad iyo aad baa ku salaamaya walaashay adeer macaan kaas maamul goboleed ma aha waxa weeye meeshan la yiraahdo goldogob iyo koonfurta gaalkacyo isbaara SSDF jamhadii la oran jiray baa isbaara u taale waqooyiga gaalkacyana jamhadii USC la dhihi jiray baa isbaara u taale waxaas maamul lama dhaho maamulkan hadda soo wadno gudaha ballaaran oo galmudug baa iyo maamulka koonfur galbeed labadaas waxay u yihiin tusaale maamulada ha soo raacaan soo waxa faantay ma ahan maamulka koonfur galbeed abgaal baa ku jira murursada ku jira habar gidir baa xataa waxay ku leedahay xildhibaano hadaad ogtiyaa hadii kale biyamaal baa ku jira jareer weyna ku jira raxan weyn baa ku jirta cid walba ku jirta soo waxa faantay ma ahan saasa loo baahan yahay laakiin qabiil meel isku xiray oo riyaha kufsanaya oo imaaraad u shaqeynaya oo takadii boosaas 10 lowro dhagaxa ku riday waxaas maamul lama dhaho oo magaalo madaxdiisa sidiidaya waxaas maamul goboleed ba ma ahan maamul goboleed waa jamhad tuuga ah weey waxaas maamul goboleed lama dhaho jamhad bilqa ah weeyo isbaara dhigatay meesha isbaara u tal isbaaradana waa laga qaadaya anagu marka israacno hadda goldub mudug la dhameystiro maxaan ku dhahay ciidamadayada aan isku dhaf ka dhigno oo baanlaad kala daalayna jamhadda tuugada ay meesha dhigatay meesha la nugaal iyo barina maamul sharaf loo la yaqaan baa loo sameeynaya ana ku sheegaya annagoo wada soconna reer mudug haday is wada raacaan iyo reer galgaduudna waa la ogyahay dadtaan dhigayno waa la ogyahay shaakay ku nacay wala iyo bil dad badan waa edbinayna ii daar heest hatris clachio ya fanaankaygi sharafta lahayo scratch ya ii daar goldow waa buntland kaala igu qasab buntland xagee la dhaha buuqland baa la dhahaa kufsiland waa jamhad isbaara dhigatay meesha imaaraadka u shaqeysa oo riyaha kufsata adeer ka fariisa meesha waagi la sharfo oo nugaaliya la isku darabare ama waxa lagu darayaa maamulka waxa la dhahaa maamulka waqooyi bari nugaal yaana dhihine sool sanaag iyo meeshan la yiraahdo togdheer oo la isku daray doono baa maxaan ku dhahay hadii alla idmay bari ku darmanaysa nugaalna toos bay muqdisho u hoos tagaysaa hadii naan maamul fiican oo bari iyo nugaal oo sharaf leh inaan ogolaan tuuga yaqaaninta ma jirto wax qabiil la yiraahdo laangaab waxa imaaraadka u shaqeeya Faysalow oo ina gubeedka oo riyaha kufsadaan laangaab ah ya oo wax diracyo qaba maxaan ku dhahay ay kufsadaan oo takadoodiina 9 container oo dhagaxa ay ku rogeen oo gabdhahooda lixtirada buqlan lagu kufkufsanayo kuwaas laangaaba anagu laandheero dhalo banaan tagay oo qarana iyo wad sheekada cilmiyo waxa weey wadnaha ku dhagle adkayso ilma gabra wallahi karbaash baa idin yaal gabra markuu idin ka baqtiyaad imaaraad dhabta uga fariisateen tuuga yahay oka saldhigta ee galmudug sanad guura wacan adeer macaan anagu haddaan dumarka Soomaaliyeed mahayna
waxaan madaxweyne maamul goboleedyada dhan annaga madaxweyne ka noqonayna futadaana laad idinka gelina dhalinyarada Soomaalida waxaan ka dhiganaynaa askar baan ka dhiganaynaa odayaasha xunka ee tugada iyo qabyaaladaystaha iyo riyaha kufsadana futadaan laadka xabsi baan idinku wada guraynaa tuga iyo qaayimiinta laandheer laankiinu ma kuwa riyaha kufsada oo 6 jirada kufsanaya 12 jirada safka ka galaya 7 nin adinkoo ah tuga iyo qaayimiinta laandheeranimadu masaasa iyo qabiilka aad sheegaysiin mooryanta fariista wariyay tuga yahay diinta islaamka la idinku soo celinaya Soomaalida galmudug rawan نبعد عاشق نبعد اسمه ku salaamaya